Falimada rasuullada cutubka afraad intay dadkii la hadlayeen ayaa wadaadadii iyo sarkaalkii macbudka iyo saadukiintii u yimaadeen iyagoo ka xumaaday maxaa yeelay waxay dadkii bareen oo ciise ku ogeysiiyeen sara kicidda kuwii dhintay markaasay qabqabteen oo xabiseen ilaa maalintii ku xigtay maxaa yeelay durba fiidkii bay ahayd laakiin qaar badan oo hadalkii maqlay waa rumaysteen oo tiradii nimanku waxay noqotay abbaaraha 5,000 markaasaa waxaa dhacday in maalintii dambe taliyayaashoodii iyo waayeeladoodii iyo culimmadoodii ay yeruusaalem isugu soo wada urureen waxaana joogay annas oo ahaa wadaadkii sare iyo kayafas iyo yooxana iyo aleksandaros iyo in allah intii wadaadka sare xigaalo la ahayd oo intay dhexda soo taageen bay weydiiyeen oo ku yidhaahdeen xooggee ama magacee baad waxaan ku samayseen markaasaa butros oo ruuxa quduuska ay ka buuxo wuxuu iyaga ku yidhi kuwiinnan dadka u taliyaa iyo waayeeladow haddii maanta naloo imtixaamayo falimihii wanwanaagsanaa ee loo sameeyey nin xoog daran iyo sidii ninkan loo bogsiiyey dhammaantiin ogaada idinka iyo dadka reer binu israa'iil oo dhammu in magaca ciise masiix kii reer naasareed oo aad isku tallaabta ku qodobteen oo ilaah ka sara kiciyey kuwii dhintay daraaddiis ninkanu isagoo bogsaday halkan hortiinna ah ku taagan yahay isagu waa dhagixii idinkoo wax dhisa aad diiddeen oo noqday madaxa rukunka mid kale badbaadada lagama helo maxaa yeelay ma jiro magac kale samada hoosteeda iyo dadka dhexdooda oo loo bixiyey oo waajib aynoo tahay inaynu ku badbaadno markay arkeen butros iyo yooxana dhiiranaantoodii oo ay garteen inay yihiin niman aan wax baran jaahilna ayay yaabeen markaasay garteen inay ciise la joogi jireen markay arkeen ninkii la bogsiyey oo la taagan iyaga waxba way odhan kari waayeen laakiin intay amreen inay shirka dibadda uga baxaan ayay wada hadleen iyagoo leh maxaynu nimankan ku samaynaa waayo inay calaamo caana faleen waa u muuqataa kuwa yeruusaalem jooga oo dhan mana dafiri karno laakiin si ayan dadka ugu sii faafin aynu cabsiinno si ayan hadda kadib magaca ninna ugula hadlin markaasay u yeedheen oo ku amreen inayan aslanba ciise magaciisa ku hadlin waxna ku barin laakiin butros iyo yooxana ayaa u jawaabay iyagii oo ku yidhi idinku kala xukuma inay ilaah hortiisa ku quman tahay inaannu idinka idin maqallo intaannu ilaah maqli lahayn iyo in kale waayo waxyaalihii aanu aragnay oo maqalnay iskama dayn karno inaannu ka hadallo markaasay intay sii cabsiiyeen sii daayeen waayo waxay waayeen waxay ku taqsiiraan dadka aawadiis maxaa yeelay dadkii oo dhammu waxay ilaah ku ammaanayeen wixii la sameeyey waayo ninkii calaamadan lagu bogsiiyey waa ka weynaa 40 sannadood markii la sii daayey ayay intoodii kale u yimaadeen oo uga warrameen wixii wadaadada sare iyo waayeeladu ku yidhaahdeen oo dhan oo markay taas maqleen iyagoo isku wada qalbi ayay codkoodii sare ugu qaadeen ilaah oo yidhaahdeen rabbiyow adigu waxaa tahay kan sameeyey samada iyo dhulka iyo badda iyo waxaa ku jira oo dhan kee ruuxa quduuska kaga hadlay afkii awoowahayo daa'uud oo ahaa midiidinkaagii oo yidhi quruubuhu maxay u cadhoodeen dadkuna maxay ugu fikireen waxaan waxba ahayn boqorrada dhulku col bay u taagnaayeen taliyayaashuna intay isurursadeen ayay waxay caasi ku noqdeen rabbiga iyo masiixiisa waayo waxaa runa in magaaladan gudaheeda herodos iyo bontiyos bilatos oo ay la jiraan dadka yuhuud ahayd iyo dadka reer binu israa'iil iyagoo ka geesa ciise midiidinkaaga quduuska oo aad subagtay ay isu urursadeen inay sameeyaan wax alla wixii gacantaada iyo taladaadu hore u gooyeen inay noqdaan laakiin rabbiyow eeg
wayna cabsiinayaane haddaba addoommadaada sii dhiiranaan oo dhan oo ay ereygaaga ku sheegaan intii aad gacantaada soo fidinaysid si aad ugu bogsiisid si calaamooyin iyo yaabab ugu samaysmaan magaca midiidinkaaga quduuska ee ciise oo markay tukadeen dabadeed meeshay ku urursanaayeen baa gariirtay oo dhammaantood waxaa ka wada buuxsamay ruuxa quduuska oo ereygii ilaah bay dhiiranaan ugu hadleen oo intoodii badnayd oo rumaysatay isku qalbi iyo naf bay ahayd midkoodna ma odhan waxaan leeyahay waa waxaygii laakiin wax waluba waa ka dhexeeyeen oo rasuulladu xoog weyn bay sare kicidda rabbi ciise ugu marag fureen oo nimco badan baa dhammaantood ku soo dul degtay mid wax la'aana iyaga kuma jirin waayo in allah intii dhul ama guryo lahayd way iibiyeen oo qiimihii wixii la iibiyey ayay keeneen oo rasuulladaa soo hordhigeen oo waxaa wax loo qaybsaday mid kasta siduu wax ugu baanaa markaasaa yuusuf oo rasuulladu ugu yeedhi jireen barnabas kan lagu macneeyey wiilkii dhiirigelinta oo qoladiisu laawi ahayd oo reer qobrus u dhashay intuu beer uu lahaa iibshay ayuu lacagtii keenay oo soo hordhigay rasuullada